waxay dhahaan jacaylka dhabta ah ma daneeyo dhalashada, fogaanta iyo midabka qofkaba. Jacaylka dhabta ah waa in la isla jiro waqtiga farxadda iyo kan murugada. Nasiib daro laakiin badanaa dadku waxay xiiseeyaan oo ay fiiriyaan xaaladaha dhaqaalaha qofka, shaqadiisa iyo muuqaalkiisa intay eegi lahaayeen ruuxda qofka iyo awoodda jacaylka. Maanta waxaan idin hayaa qiso aan ka soo akhristay baraha bulshada. Lamana oga qofka soo qoray qisada, laakiin qofka soo qoray wuu gaaray hadafkiisa, kaasoo ahaa inuu dadka tuso jacaylka dhabta ah waxa uu yahay. Qisadu waxay ka bilaabatay goor uu nin yimid magaalo aad u weyn si uu shaqo uga helo meeshaas. Wuxuu shaqo ka helay meel guri lagu dhisaayo. Maalmo yar kadibna wuxuu la kulmay gabar qurux badan, timaheeduna dhaadheer yihiin, jirkeeduna aad u qurux badnaa. laakiinse ninka waxaa soo jiitay dabeecaddeeda wanaagsaneed. Waxay ahayd gabar furfuran, naxariis leh, daacadnimo badan. Si fudud ayuuna ku jeclaaday ayada. Waqti kadibna wuxuu ka dalbaday inay isguursadaan. Ugu dambeyntiina way isguursadeen. Dadkii way la yaabeen, wayna ka dhaadhici weysay in gabar sidaa u qurux badan ay guursatay nin faqiir ah, kaasoo levelkeeda aad uga hooseeyay. Nasiib daro waqti yar kadib ninkii wuxuu ku khasbanaaday inuu u soo laabto tuuladii uu isagoo kow ka yimid, maadaama ay u dhammaatay shaqadii uu magaalada ka hayay. Gabadhii inkastoo ay nolosheedu idil magaalada ku soo nooleed, haddana shaki la'aan waxay u soo raacday ninkeedii deegaankan cusub. Lamaanihii waxay bilaabeen inay ka shaqeeyaan meel beer ah. Maalin maalmaha ka mid ah, ninkii wuxuu dareemay in xaaskiisa aysan awoodin shaqadan adag. Wuxuuna ka dalbaday inay guriga iska joogto oo isagu u soo shaqeeyo labadoodaba. Ugu horreyntii way ka diiday inay guriga iska joogto oo waxay rabtay inay ninkeeda taageerto, laakiin way ka aqbashay ugu dambeyn. Maalmo kadib ninka wuxuu shaqo u kala jiray subaxii hore, habeenkii ayuuna imaan jiray. Laakiinse intuusan bixin xaaskiisa lacag ku filan ayuu u reebi jiray subax kasta. Balse waxaa jiray maalmo ay adkeed in lacagta la helo. Hal subax ka hor intuusan shaqada aadin, xaaskiisa ayaa waxay ka dalbatay lacag ay ku soo iibsato shanlo. Ninkii wuxuu dareemay murugo, waayo lacag ma uusan u hayn xaaskiisa, xitaa ma haysan lacag uu saacadiisa jabsaneed ku soo samaysto. Haweeneydii kuma sii adkeyn ninkeeda. Kadib shaqada ayuu sii aaday. Maalintaas waxaa shaqada laga soo fasaxay waqti hore, wuxuuna aaday meesha saacadaha lagu sameeyo. Kadibna wuxuu xusuustay xaaskiisii. Intuu hagaajisan lahaa saacadiisa wuu iska sii iibiyey, wuxuuna xaaskiisa lacagtii ugu soo iibiyey shanlo cusub, muraayad qurux badan iyo cunto macaan. Guriga ayuu yimid, laakiin markii uu guriga soo galay wuu yaabay. Wuxuu la yaabay xaaskiisa oo timaheeda iska jirtay. Wuxuu su'aalay ayada, xabiibtii maxaad timahaaga u jirtay? Waxay u sheegtay inay timaheeda iska iibisay si ay isaga saacad cusub ugu soo iibiso. waxay hurtay wax ayada muhiim u ah si ay isaga uga farxiso. Kadib isaguna wuxuu tusay waxa uu u soo iibiyey. Lamaanihiina hal mar bay isla ilmeeyeen. Mana ahayn sababta waxa ay isu hureen, balse waxay ogaadeen awoodda jacaylkooda intuu la eg yahay. Jacaylka dhabta ah wuxuu ku salaysan yahay xaqiiqo. Waajib ma ahan inuu ninku ahaado boqor faras cad ku socda, ama inay haweeneydu ahaato quruxley lacag leh. Jacaylku waa in la bixiyo wax waliba, ayadoon la dalbanayn in wax dib lagu siiyo. Waa in qofka kale la daryeelo in ka badan nafsadaada, sida ay qisadani na tustay. Waxaan rajaynayaa inaad ka heshay muuqaalkan. Haddii aad ka heshay like si, haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo subscribe channelkeena. insha Allah saaxiibayaal, inta muuqaalkeena xiga waxaan idinku dhaafay salaam.